بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا حمادك الله سبحانه وتعالى، الله سونسي نعمة الإسلام والإيمان. ثانيا وحنا لكن ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda muxsiniinta meel walba ay joogaan oo mar walba garab taagan dadka masaakiinta, dadka danyarta iyo agoonta oo mar walbana caawiyo. marka labaad aan u mahadcelinaa cunugan yar oo hadda agteeda fadhiyo u jeedaan, waa cunug xanuunsan oo ka xanuunsan naafa ah oo maxog wixii ka hooseeya naafa ka ah, waana 10 jir. xanuunkan wuxuu ku soo booday markii uu ku dhashay, xanuun oo ku dhashay waay marka saas li ajligeeda 10 sano jira. saxaradana ma cishan karo, kaadana ma cishan karo, marka xafaayada hadda u xiran, marka hooyadiisana hadda gacanta ku hayso, maamada gacanta ku hayso. wax waay markuu yaraa مسخشي وحول إذا جيد جرت هذا مركان ما دام دأديسه أي هراء يسي كردي مركب ميزان كيسن أو سي كردي مع مضى حيد هذا مروى البحر جذال وكدال أنا جن شقينا آذن والربا ساس لأجل جذا عنقة محمد ربا إن أيد هذا جاري إنه أهله مركا ومضى محسنين تأهمل البيجوان وإحنا عدر أنه باقينا إن عنقان أي سوق رب استاجان وحبه هي جاري ويكجر أو كصعدة أو مسخول أو كآذو oo u baahan yahay. marka kulli insha Allah ummadda muxsiniinta waxaan u daran u baaqay inay soo garab istaagaan oo wigjarkaas in loo gado hadii baan daawada loo awoodana alxamdulillah isbitaal ilaa lama geenin in wax laga qaban karo, in wax laga qaban karin wali isbitaal laga ma sheegin. marka tabar isbitaal ay ku geeysan ayadana ma bahayso. marka hadii isbitaal loo geey karin alxamdulillah, hadii isbitaal aan loo geey karin ummadda muxsiniinta waxaan u daran u baaqayna inay ka qayb qaataan sidii aan ugu gadi lahayn wigjar oo ku socdo. waxaan coddeer aan u baaqaynaa inay u iibiyaan wiiljar oo ku socdo oo gaari yar oo masqushin oo ku aadi karo oo ku socon karo in loo gado insha Allah. sidaada oo dhabarkeyga idin kaga muuqato dad hadda buushashkan degan waaye, marka mana awoodaan maanta inay cunug ay wadaan dhakhtar ay geeyaan ama inay wigjar ay u gadaan ma awoodaan. waxa waaye meesha ay jiiftaan oo ay ku hoydaan waa u jeedaan. marka hadda waaye dad meeshan jiifto maanta waxa inay wigjar ama dhakhtar ay aadaan waa dad awoodo ma ahan. marka waxaan coddeer aan ugu baaqaynaa ummadda muxsiniinta meel walba ay joogaan inay soo garab istaagaan oo cunugan iyo hooyadiisa ay kaga farxiyaan wigjarkaas inay u gadaan marka ama dhakhtarna ay geeyaan. Assalaamu calaykum.